wararkii ugu dambeeyey ee dalkaasi Ukraine duulaanka Ruushka uu ku qaaday. warbixinada ka imaanaya dalkaasi Ukraine ayaa sheegaya in deegaano dhowr ah oo magaalada Mariupol ee wadankaasi Ukraine ay isku bedelayso ayaa la yiri mid duqeyn toos ah oo Ruushka uu ku sameynayo. madaxweynaha wadanka Ukraine waxa uu hadal uu ka jeediyay kulanka gaashaanbuurta NATO ee aqalka Kremlinka ee dalkaasi Ruushka loogu baaqayo in uu joojiyo ama looga digayo adeegsiga hubka nuclear-ka. dowladda Ruushka ayaa hore waxay u sheegtay in haddii Qatar ay dareento in hubkaasi ay adeegsan doonto. weli waxaa soconaya dadaalada lagu doonayo in dagaalka lagu joojiyo. madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu sheegay in wadahadalada nabadda ee Ruushka ay tahay mid lagu doonayo in dagaalka lagu soo gabagabeeyo oo muddo bil ah socda. waxaa sidoo kale uu shaacu ka qaaday in meelaha qaar la isku fahmi la'yahay. mas-uuliyiin reer galbeed waxa ay sheegeen in ciidamada Ruushka ay hadda ay yihiin kuwa ku gidaaman magaalada Kiev ee caasimadda wadankaasi Ukraine. waxa ay doonayaan ayaa la yiri in ay horumar ay dhinaca koonfur iyo bariba ay kaga sameeyaan magaaladaasi. saraakiisha reer galbeedka ee lasoo xiganayo waxa ay sheegeen in dagaalyahanada Ukraine ee ciidamada iyo sidoo kale kuwa calooshooda shaqaysayaasha ah ay iska caabin xoogan ah ay ku sameynayaan ciidamada Ruushka ay u soo dhaqaaqay dhinaca iyo magaalada Kiev ee caasimadda wadankaasi Ukraine. balse waxaa la leeyahay waqtiga ayaa ku socda oo ciidamada Ruushka waxa ay isku dayayaan in si awood leh ay ku qabsadaan magaaladaasi. labadii saacadood ee lasoo dhaafay baraha bulshada waxaa hadalhayntu ay ahayd madaxweynaha wadanka Ukraine oo isagu ugu baaqaya ninka ugu sareeya Vaticanka Pope Francis inuu booqdo wadankaasi Ukraine halkaasi uuna ka bilaabo dhexdhexaadinta xukuumadaha Kiev iyo sidoo kale Moscow si dagaalka loo soo dhameeyo. sidoo kale waxaa jira dowladda Mareykanka oo ugu baaqaysa in gabi ahaanba amaba dowladda Ruushka ay ugu baaqday in ay ka takhalusto hubkeedii kiimikada. Mareykanka ayaa waxa uu 3% hubkiisii kiimikada uu horey u baabiyey, waxaana uu sheegay in khatar weyn oo caalamka ay tahay. hay-adda khatarta hubka kiimikada ka digta ayaa waxa ay shaaci ka qaaday in dalkaasi qayb ahaan hubkii kiimikada uu ka takhalusay. xubnaha golaha sanadka ayaa waxa ay la kulmayaan wasiirka garsoorka, waxaana lagala hadlayaa ayaa la yidhi joojinta iyo sidoo kale cunaqabateyn la saarayo dahabka cayriinka ah ee wadankaasi Ruushka. sharci dejiyaasha labada xisbi ayaa waxa ay doonayaan diyaarinta dhowr cunaqabateyn oo ka dhanaa dowladda wadankaasi Ruushka oo hadda taaban doonta ka ganacsiga dahabka oo lagu qiyaasay ilaa iyo 132 bilyan oo dollarka Mareykanka. dhinacii xaaladaha bini'aadanimo haddii aynu fiirino weli waxaa ka taagan dalkaasi Ukraine xaalada bini'aadanimo aad u daran. 100,000 oo qof ayaa waxa ay isku dayayaan inay ka baxaan magaalada Mariupol oo dagaal xoogan iyo duqeyn ay ku socoto ayaa la yidhi. ilaa iyo hadda keliya waxaa laga saaray ilaa iyo 7,000 oo qof oo si adag ah magaaladaasi uga baxay. mas-uuliyiinta wadanka Ukraine ayaa sheegay in duqeynta dhinaca cirka ee Ruushka ay xoogeysatay magaalada Mariupol ee xeebta dhacda halkaasi oo go'doonsan. dagaalkaasi waxa uu noqday ayaa la yidhi mid wadooyinka ay isku ceersadaan ciidamada Ukraine iyo sidoo kale kuwa Ruushka. magaalada waxaa la diidan yahay ayaa la yidhi in ciidamada Ruushka ay gudaha u galaan, ciidamada Ukraine ay hubka ay dhigaan ayna wareejiyaan. golaha magaalada ayaa waxa uu tilmaamay in magaaladaasi hadda ay noqotay meel waliba mid ku dhacaya duqeynta diyuuradaha dagaalka ee Ruushka. wakaalada wararka ee Ruushka ayaa soo xiganaysa mas-uul ka tirsan hogaamiyaasha gooni-goosadka oo isagu sheegaya in ciidamada Ruushka iyo sidoo kale kuwa kale ee gobolada gooni-goosadka ciidamadoodii ee Ruushka taageeraya ay hadda ay yihiin kuwa gacanta ku haya bar ka mida magaaladaasi. Pavlo Kirilenko, gobernatoraha gobolka Donetsk, ayaa waxa uu sheegay dagaalka hadda in uu yahay mid wadooyinka ka soconaya. dadka rayidka waxa uu tilmaamay in ay yihiin kuwa meelaha qaar rasaas ay ugu tagayso. wakaalada wararka ee Reuters ayaa waxa ay shaaci ka qaaday in dadka rayidka ay ku sugan magaalada Mariupol
ay xaaladda ay kusii adkaanayso ilaa iyo 400,000 oo qof ayaa ku nool magaaladaasi. waxaa la rumaysan yahay 100,000 oo qof inay ku goodansan yihiin dhismooyin waaweyn oo aysan haysan wax cunto ama biyo ama koronto. madaxweynaha dalkaasi Ukraine waxa uu khudbad uu dhinac iyo fogaan araga uu ka horjeediyey xubnaha baarlamaanka Talyaaniga. waxa uu sheegay in aysan jirin wax hadda haray. Sergey Orlov, ku-xigeenka madaxa magaalada Mariupol, ayaa u sheegay shabakada CNN-ka in magaaladu hadda ay tahay mid go'doonsan oo cunaqabateyn ay saareen ciidamada waddankaasi Ruushka, mana jirto wax gargaar bini'aadanimo magaalada geli kara. Orlov waxa uu hadalkiisa intaa uu ku daray in magaalada sidoo kale ay duqeyn isdaba jooga ay ku socoto. maalintii waxaa laga yaabaa ayuu yidhi 50 ilaa iyo 100 gantaal in lagu soo tuuro ayuu yidhi. intoodii badan waxa ay yihiin ayuu yidhi kuwo saameyn xoogana ku yeelanaya dhismooyinka waaweyn oo ay dadka rayidka ay ku goodansan yihiin. xafiiska qaramada midoobay ee arrimaha bini'aadanimada ee fadhigiisu yahay Geneva ayaa waxa uu sheegay in uu diiwaan geliyey 953 qof oo geeri ah oo dad rayid ah. sidoo kale dhaawacan waxa uu sii cagacageynayaa 557 qof tani markii uu bilowday duulaankii dowladda Ruushka ay ku qaaday waddankaasi Ukraine. inkastoo xukuumadda Ruushka ay beenisay inay bartilmaameysato dadka rayidka ah. madaxweynaha Ukraine oo isagoo hogaamiyaasha dowladaha gaashaanbuurta NATO la hadlayay amaba la hadli doonaa khamiista soo socota ayaa waxa uu ka codsan doonaa ayaa la yidhi in dagaalkaasi weji kale loo yeelo ama lasoo gebagabeeyo. waxaa sidoo kale jirta ayaa la yidhi in madaxweynaha oo kulankaasi fogaan aragga ee videoga uga qayb qaadan doono uu u sheegi doono in fursad toosa ay hortaalo hogaamiyaasha gaashaanbuurta NATO ay ku xadeyn karaan wadciga bini'aadanimo ee shacabka waddankaasi Ukraine hadda ay ku jiraan, iyo sidoo kale sidii loo xakameyn lahaa duqeynta iyo dagaalka dowladda Ruushka ciidamadeedii ay kasii wadaan waddankaasi Ukraine.